Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Qisadan ayaa waxay ka dhacday dalka Masar, waxayna ku dhacday ustaadka la yidhaahdo macalinka Maxamed Jamaal oo wax ka dhigayay tuulada Alxasar. Muddo ka bacdi macalinka waxaa heshay tii Ilaahay wuuna xanuunsaday, wuu waashay, qof walan ayuu noqday, reerkoodii ayaa xidhxidhay. Muddo markii uu sidaa ahaa ayaa waxa uu dhaqan ka dhigtay in guriga uu ka baxo, uu soo noqdo amba uu ka maqnaado dhowr cisho, toddobaad, ugu badnaan dhowr iyo 10 cisho uu guriga markaas ku soo laabto. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday in Maxamed Jamaal uu guriga ka baxo soona noqon waayo. Muddo ka bacdi markii la diiday Maxamed Jamaal ayaa waxa Maxamed Jamaal xaafadoodii amba reerkoodii waxaa soo wacay isbitaal ku yaala meesha uu degnaa oo loo sheegay in ay yimaadaan isbitaalka. Kabacdi markii ay yimaadeen isbitaalka ayaa waxay la kulmeen askar oo weydiiyey inankani makiiniba loo fiirsada, waayo waxa uu ku jiray wejigiisa uu qarsoomay oo waa la arki waayey, waxaana intaas u sabab ahaa inuu talaagada isbitaalka ku jiray. Muddo ka bacdi markii la iswareysanayey ee baaritaan la sameynayey waxay reerkii aqoonsadeen inuu yahay Maxamed Jamaal oo ay ku aqoonsadeen da'da, wejiga, waxyaabo badan oo iskaga mid yihiin. Maxamed Jamaal halkaas ayaa lagu qaatay meydkiisii. Reerkuna waxay geysteen xaafadii, way duugeen, wayna astureen meydkii. Muddo ka bacdi ayaa waxaa dhacday qiso cajiib ah waata halkan aan ku soo bandhigayno. Maxamed Jamaal wiil xaafadooda deganaa amba xaafadda uu ka tirsanaa deganaa ayaa waxa uu soo maray Maxamed Jamaal xaafadii xabaashii uu ku noolaa, uu ku aasnaa. wiilkii ayaa waxa uu qiso cajiib halkaa kala kulmay. ninkii la aasnaa oo haddana xabaalihii socsocda. waa cajiib. Maxamed Jamaal ayuu soo kaxeeyey, uu gartay inuu macalinkiisii yahay, uu soo kaxeeyey xaafadii buu keenay, xaafadii uu la wada murugsan yahay, way naxday xaafadii markay soo aragtay Maxamed Jamaal oo nool. kabacdi way qabsadeen, way xidhxidheen amba way guriga qolbi geliyeen. askartii baa timid xaafadiina way isku soo wada baxday. waa la wareystay xaafadii, waxa la yidhi inankan makiiniba haabay yidhaahdeen oo waa inankaygii naga maqnaa intaasoo bilood. 7 bilood ayuu ka maqnaa xaafadda, 7 bilood ayuu ka maqnaa, intii uu aasnaa iyo intii kaleba. haddaba askartii ayay noqotay, wiilkan la aasay yuu ahaa. isbitaalka iyad bil loogu noqday, qaladkana isaga la saaray. qaladkana sababta loo saaray ah meyd aydan hubsan ayay idin saarteen oo waxaad ka dhigteen meyd qof kale. micnaha way hubsan waayeen. markaasi qaladka waliyalanka waxaa la saaray isbitaalka. Maxamed Jamaalna haatan waa nooliyey, alxamdulilah. xaafadooda aysa waa nin xanuunsanaya. waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu caafiyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.